بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يؤهله قلها قارهية سيدة داد بدن لصعدو برتميه بشي ماج waxaanu soo dhignay halkan bayaan aanu dhignay mareegaha Soomaalida kuwa ugu caansan waxaana kala wareysi siinay telefishinka caanka ah ee Somali Cable bayaankaas wuxuu ku saabsanaa wada hadal loogu yeeray dawladda farmaajo iyo shabaab waxaanu saa u yeelnay waxay ahayd kadib markaan aragnay dad badan oo maxas Soomaali ah dumar iyo ciyaal u badan oo ilaa Zeylac ilaa koonfurta shishe banaanbax soo dhaweynaha u sameeyay marka waxaan rabnay dadka inaan tusno bal sida xaqiiqada ah waxaanu xasuusinay farmaajo iyo dawladdiisaba in waxa Soomaalidu u fadhiday muddo dheer ay ahayd dib heshiisiin waxaan la heshiisiyaa dad is haya waxa is haya maanta saaxadana waad garan kartaan shabaabka iyo ayaga dawladda sheeganaya ka kow ah amarkana wax kastana waxa laga abaaraa meesha u sareysay iyo sida xujiraan ilaa hadda yani dawladdaanu ka filaynay inay maadaama ayadu ay socon karto oo xiriir leedahay inay hor hadasho oo ay ama ogolaato ama diido ilaa hadeertaan waxa kaliyo hadlay wuxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa wuxuuna si toos ah u sheegay oo yiri waa laga maarmaan in shabaabka lala hadlo asaga maadaama uu siyaasi yahay ma oran waxyaalaha iyaga kale waa ku fashilanay laakiin wuxuu soo qaatay falsafada ay isticmaalaan oraah ah yani kaaroto iyo ulha la isugu daro laakiin si toos u yiri waxaan ay sheegayaan oo ah ha is dhiibeen iyo sasabaadaas ma shaqeynayso annaguna waagii farmaajo waxaan iyo dawladdiisa waxaan xasuusinay inay iska daayaan laba arrimood kow midaan ay leeyihiin 2 sano gudahood iyo waxaas aanu shabaabka ku sifeynaynaa iyo midda labaad oo ah inay dhahaan yani hay soo dhiibeen hubka hay iska dhigeen dhaqaale calin baan u sameynaynaa markaas shaqo iyo dadkooda ay ka mid noqonayaan labada arrimoodba nimankii ugu horeeya yani ku hadaaqi jiray Michaelna waa kan hadda saas laftigiisu leh arrimaha noocaas oo kale waxa ma tarayaan laakiin wada hadal bal rabaa taas waa midaas runtii annaga waagii aanu arrintan bilownay oo aanu dadku soo dhex dhigaynay dad badan markaad tiraahdid waxaan damacsannahay inaanu dhahno dawladda iyo shabaabku ha heshiiyo wada hadal way kula yaabayaan maxaa yeelay waxay u barteen arrimaha Soomaaliya oo la yiraahdo Mareykan baa saa yiri ama beesha midowga Yurub ama wadamada jaarka ah runtii in badan oo kamid ah madaxay taageen dad badan oo yani yiri waa arrin sax way jiraan laakiin dad badan baa yani waxaad moodaa wax qariib ku noqday oo ay la yaabeen taas waa midaas hadalkaas marka Michael Keating hadda uu ku hadlay runtii annaga macnaheedu noo sameynaysaa sababta waxa weeye wa shahida shaahidu min ahliha weeye yani ninkan wadanku ka socdana waa la yaqaanaa wuxuuna matalayaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dawladda waad la socotaan warqad kasta iyo wax kasta iyo siyaasad kasta iyo policy kasta ay sameynayso waa loo dhiibaaba asaguna wuxuu ka warqabaa xataa xalana iyo waxa lagu haye iyo amisom iyo marka xaqiiqatan uu ka xogaalsan yahay isaga arrimaha hadda Soomaaliya isaga ka ogba qoliyahan madaxda Soomaalida iyo xildhibaanada iyo kuwa sheeganay aqalka sare iyo taas waxaan u maleynayaa arrin laba qof isweydiinaysa ma ahan anaga arrintaasi wana farxad galiyay sababtu waxa weeye dadka qaar ba ama khiyaali ula qabay ama wax laga cabsadaba in la dhihi karo
shabaabkii dowladdu wada hal loogu yeero, laakiin waad ujeedaa ninkii arrimahaas qaabilsanaa ee beesha caalamka UN-ka uga wakiilahaa baasaa u hadlaya. waxaa jirtay qiso xadiis saxiixa weeyaba, laba saxaabi oo is dhashay waa zayd yacni banu xaarisa iyo usaama oo wiilkiisa ahaa. usaama wuu madoobaa, zaydna saas ma ahayn. marka dad badan baa duri jiray sida munaafiqiinta oo kale, dad badan baa dhihi jiray labadaa nin oo uu nebiguba aada u jeclaa sala allahu alayh wasalam isma dhalin bay dhihi jireen. maalin ayagoo jiifa masaajidka lugahooda ka soo baxsanaa waxay huwanaayeen. marka nin ku dheereeya arrintan hiddaha iyo tafiirta baa arkay oo yidhi lugahaasi waa isleeyihiin. nebigu sala allahu calayhi wasalam asagoo aada u faraxsan ayuu u galay hooyadan caaisha oo yidhi ma maqashay ninkii mudlajiga ahaa wuxuu yidhi arrintii buu u sheegay asagoo faraxsan, aada buu ugu farxa. annagu waxaan ugu danleynaa marka michael ba oo arrimaha soomaaliya iyo dowladdaasba asagoo ka warqaba oo arrimaha soomaaliya ugu dhundaloola, wakaas wuu qarsan waayey inuu yidhaahdo wada hadal waa muhiim, si toosuu u yidhi. arrinta saan u muhiimka ah maxay uga aamuseen v o a da qeybta soomaaliga ee b b c da? runtii anugu kolley muddo dhan baan wax qorayay waagii imbagati iyo eldoret iyo weligeyba anugu kolley nimankan qolyahan kumama qanacsanayn say wax u wadaan iyo mana ahan dad soomaaliya yacni dan iyo yacni u shaqeeya. waa waxa igu marka say rabaan bay iska yeelaan. marka wakti kuma dhuminayno, laakiin ilaahay hadda wuxuu soo saaray yacni saxaafad khaasatan telefishinadan soomaalida iyo social mediaha waxaan la yidhaahdo telefishino caan oo aada loo fiirsadaba, Somali cable iyo universal iyo kaba caansanba hadda b b c da iyo Soomaali qeybtada iyo v o a cid rabtaba ma leh, wareysiyaashii dhan kasta uga horreeyaba. marka waxaan u malaynayaa waa laga tashanayaa, ma danaynaya arrimaha soomaaliya. aad moodaa taasi waa middaas. farmaajo aan kusoo noqonayaa marka fursad kale ha qaateen, maadaama nasiib darre ay tahay inuuba michael uu ka hor hadlo, laakiin weli jawaab baa laga rabaa inay ogolaadaan ama diidaan. aniga shaksi ahaan runtii awalba yacni rajo saasa kama qabin oo nimankan dee anigu waxaan u arkaa marwalba runta markii loo hadlo dad ixtiraal ku hoos jiro gumaysi. marka ayagu hadalba ma leheba badanaa, marka waxa lagu eeda ma lehe, laakiin waxaan ugu talagalay dadka soomaalidu inay ila arkaan. laakiin fursaddu waa furan tahay. hadday dhaqso usoo jawaabi waayeen qof kasta oo hadda raba inuu arrimaha soomaaliya ka hadlo waxay noqonaysaa badanaa qofka yacni sayidka iyo qofka cabiidka addoonka ah, dee qofka sayidka ah baa lala hadlaa. wax badan baa anugu ka madax taagnay in la yidhaahdo macnaha beesha caalamka adduunka haysata runtii xoogaa ceeb bay ahayd in yacni, laakiin hadda sida muuqata waxay noqonaysaa meesha dowlad ma joogto, waxay noqonaysaa sida muuqata in haddee la yidhaahdo shabaabka iyo dadkaas soomaaliya horbooda sida beesha caalamka maraykanka iyo midowga yurub iyo dee in lagala hadlay noqonaysaa. ilaa waddankeeni waa lanku haystaa. badanaana anigu waxaan jeclahay qofka yacni sayidka in lala hadlo weeye, ma jecel qof cabiid ah oo aan kelmad lahayn in wakti lagu numeeyo. soomaalidu madaxday eedeysaa, laakiin madaxda keliya eedda ma leh, kulligeen baa dad eedeysanayaal ah. nimankan madaxda ah waa nimanka 10 cabdibile oo dhashii ka saaran yahay garoon geegi habaas weyn intay la yimaadaan 100 wiil iyo dhowr darsin oo dumar ah oo usoo labisaan oo xataa qaarkood kabihii iyo tuutihii fiican aan wadan yidhaahda ii gaardiya dhoolatus baan samaynaynaa. maba ay garanba dhoolatuska waxa laga wado inuu yahay dee waxa lagu cabsi gelinaya cadowgaaga awooddaada. marka nimanka jacaylka iyo waalidu ay ka gaartay maalin kasta 10 cabdibile inay garoon la tagaan oo markay baxayaan ciyaalka yararka dumarka iyo dadka qoraxda ay safaan oo saa u salaamayaan. iyo shacabkeenaan ku waashay madaxdaas iyaga saas ah ee maalba xafladaha iyo meel kasta ay u tagaan dariiqa u tuban oo xafladaha u samaynaya. waa un imtixaan. waa sida qur-aanku u leeyahay macnaha wakadalika nuwalli bacda dhaalimiina bacda oo kala weeye.
wax isla way wasleenna marka waxaan ku soo xoreynaa farmaajo waqti uu haystaa jawaab baa laga rabaa biyaha badda iyo biyo farmaajo iyo subag ma dhalaan caanaha la rabaa caanaha laga dhashaa subag iyo farmaajo dhulkii xooluhu joogay baadiyihii shabaab baa jooga marka xamar iyo kismaayo iyo baydhabo iyo marka iyo baraawe magaalada gudaheeda lagu wareegsado waxa uma keenayso marka farmaajow ama hadda baddaas biyaheeda subag iyo farmaajo ka keentay ama sidii nimankii u horreeyey dee kaa horreeya waa ku ceeboobaysaa macquul ma ahan fuustadii dabada ka dalooshay ee ragga hore buuxin waayeen ma buuxin kartid dad baa kuu sacabiyey dumar iyo ciyaal iyo maxas kusoo dhaweeyey waxay kaa filayaan tallaabo aysan nimankaa qaadeen inaad qaadid tallaabadaasna keliyan waxay noqon kartaa nimanka meesha ka dagaalamaya inaad wadahadal u furtid oo xabad joojin la samaysatid wadahadalka iyo xabad joojintu saa hore u sheegay kuma xirna mabda muslimiin buu dhex mari karaa gaalayo muslim buu dhex mari karaa wax yacni diidi kara qofku uu dhihi karaa heshiis ma gelayo ama cid ma arkayo laakiin wadahadalku wax cidna diida mabda ku xiranba ma ahan marka waxaanu leenahay bal waqti kala qaado jawaab dhaqso ah baa laydinka rabaa hadda kadib haddaad jawaab idinka waayo dowlad dambe iyo yacni nala ka maqli maayo arrimaha soomaaliya waxaa lagala hadlayaa dadka ay ka go-do sida beesha caalamka iyo shabaabka laftigiisa dad baa dhahaa alqaacidiyay ku xiran yihiin laakiin ayaguna waa lala hadlayaa dadka la tusayaa bal in ay yihiin niman wax ka go-aan iyo inay yihiin niman kuwaan oo kale ah oo ayaguna aan hadal ka go-in marka maanta intaasaanu kusoo xiraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu